السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا والله هي قالقة ميل كستا دونك دعالدي سكا joogtaan kusoo dhawaada channelkiina farxiya bilan cooking asxaabteeda waxaa idin leeyahay ilaahay idinku xifdiyo meel kastaa joogtaan ha idinku amaansado cimri dheer iyo cibaado suuban ayaa idin rajaynayaa maasha Allah tabaaraka Allah soo dhawaada alxamdulillah video kale ayaan isugu imaanay ugu horeyn haddaan nagu cusub tahay subscribe dhagan baleelka furo haddaa hore noola joogtayna like iyo comment iyo share intaasaad mas-uul ka tihiin ma fahanteen walaalahayga qaaliga maanta videogan aragtaan quruxda badan maasha Allah tabaaraka Allah oo 1 2 3 ga aadka u fudud 1 2 3 hadda iga maqashaan maxaa waaye waa shay hal mar laga soo tuuraayo insha Allah qaabka u sameeyay baastadan isku kariska ila soo daawada asxaabi halkan waxaa ku haystaan nus kiilo oo hilib ari ah ayaan ku haystaa nus kiilo hilib ariya si yarna umaana jarjarinin xogaa waaweyn ayaan u jarjaray sidaa u jeedaan ayaan u soo jarjaray hilibka dhexda le ka saasaafay yacni maana yaryaraynin sidaas ayaan rabaa inaan ku sameeyo insha Allah ma yaryaraynayo dhexda le ka saasaafay hilibka waxaan sameynayaa digsigan dabka soo saaranayaa insha Allah xabad basal ayaan ku darayaa markaan saliid yar ku soo darsaday ka bacdi xabad basal ayaan ku darayaa sa u jeedaanba baastadan waxaan ku iri wax kale noqon doonta insha Allah ila arki doontiin waana 1 2 3 ya asxaabta iskaabulada aad ay u caawinaysaa oo ayagoo daalan markay guriga yimaadaan aan ciido wax u sii karinin hadday ka soo tuurtaan waxaan ku iri daqiiqada uga soo tuuranayaan maasha Allah okay asxaabteeda hadda waxaan ku soo darsanayaa hilibka ayaan ku soo darsanayaa basashii markay wax yar brown noo noqotay hilibkii ayaan gab ku soo siiyay hadda waa isdhex gelinayaa marka asxaabay hilibka maadaama baastada wax yar ay karsanto oo sida bariiska oo kale aysa ahayn hilibka marka hore waxaa fiican marka baasta ku dhex karinaysid inaa wax yar marka hore asaga soo jilcisid oo biyo yar ku dartid oo asaga soo jilcisid ayaa fiican sababtoo waxa weeyaan baastada wax badan ma ka dhawaawado ognahay sida bariiska oo kale ma ahan hilibkii direct uguma wada bislaan karo si toos uma wada bislaan karo hilibkii saa rabtay kuma noqon karo asxaabay hadda waa u jeedaan basashii hilibkii waa ku huuray maasha Allah tabaarakallah hadda waxaan sameynayaa maraq digaag baan ku darsanayaa ka bacdina biyo yar biyo karkarsan biyo karkarsan baan ku darayaa insha Allah si intaan yaanyada iyo waxyaabaha kale oo aan rabo inaan ku darsado aan inta soo jarjaranayo ama soo diyaarsanayo hilibku wax yar uu iigu sii bislaado biyaha yar ayaan ku daray waana biyo laftirkooda kulul oo karkarayay weeyo horaan rabaa inuu ka sii karo in isku daahdaah noqoto sheekada ma rabo marka hadda waxaan sameynayaa maraq digaag baan ku darsanayaa si intuu karaayo uu hilibka dhanaanku dhexda uu uga galo maraq digaagaas bas aan ku darayaa xabad maraq digaaga haddaad doonti jab ku darso haddaadan maraq digaaga jeclayna cusbo ku bedelo cusbo yar ku sii dar si dhanaanku hilibka intuu biyaha ku karay uu dhexda uga sii galo biyahaasaan ku daboolayaa asxaabteeda ha u jeedaan si u badbadaayo u karkaraayo because biyahan ku darayba way karkaraayeen way kululaayeen hore lee kasii karkaray asxaabay hadda waa kusoo noqonay waa kana biyihii aan ku daray waa dhamaystay maasha Allah haddaan ku darayaa waxyaabihii kale oo aan ku dari lahaa ila socda okay halka waxa igu jira 2 xabo oo yaanya iyo xabad basbaas oo aan jarjarin aan labada afle ka jaray waa ku daray sidoo kale waxaan ku soo darsanayaa carrot aan soo xoqay bahasha carrotka lagu xoqo aan ku soo xoqay qaybta waaweyn birta carrotka lagu xoqo qaybta waaweyn aan ku soo xoqay aan ku darsaday walaalahayga qaaliga maasha Allah tabaarakallah waa dhex gelinaynaa ayaan ku dhahay haddana waxaan rabnaa inaan ku darsano waxyaabihii aan ku carfin lahayn sheekada waa idin sheegay waa 1 2 3 isku daahdaah male hadda waxaan ku darsanayaa waa huruudda cuntada wax yar oo huruudda cuntada ayaan ku darsaday sidoo kale waxaan ku darsanayaa maxaa la dhahaa star qofkii aan aqoonin muuqaalkeeda
insha allah mar aan bariis karinaya idin tusi doonaa. horey anoo bariis ugu daraya channelka waa ugu jidhaa, laakiin insha allah bariisyada kale aan soo wado anoo ku daraya waa idin tusi doonaa starta. haddana waxaan kaloo kusoo darsaday xawaajiyo. cusbo ayaan kusoo darsaday walaalahayga qaaliga. maraq digaag haddaa ku dadhid cusbadana u qiyaaso, maadaama maraq digaaguna dhanaan yahay, cusbadiina dhanaan tahay iyo dhanaanku kaaga badanin cuntadaada si kastay u macaan tahay. haddii dhanaanku ku bato waxaa weeye macaankaas waa gubtay baan ku dhahay, macaankaasi waa gubtay, ma fahanteen? marka waa inaa qiyaastaada la socotid, dhanaankaaga la socotid waaye. asxaabi hadda waa kusoo noqday yaanyadii iyo kaaroodkii iyo wixii oo dhan maasha allah waa isku dhammaadeen, waa ujeedaan. hadda diyaar waaye, waa biyeynayaa, biyuhuna waa ii karkarayaan aan ku biyeynayo insha allah. waxaan rabaa horey inuu kasoo karo oo horey baastada uga daro. baasta isku dhex karis. halkay asxaabi biyaha karligaasaaba ku karkariyey say horey le uga sii karo insha allah. biyahana ayaysa kaaga badanin, qiyaasta baastada karsanaysid. ay saaid kaaga bajaqdo lama rabo baastada, ama ay saaid kaaga jilicdo. okay asxaabta hadda waa diyaar, biyahana waa kulul yihiin, horey le kasoo karayaan. hadda baastadan ku darayaa. horta waxaan ku darsanayaa 2 jab oo bambanooni ah. bambanooniga cuntada maasha allah caraf iyo tasdib waa u yeelaa. baastada aan raba inaan isticmaalo waa baasta macaroni miyaa la mise bacanooni, anaaban karinba. corina la dhahaa magaceeda, corina. baastadaas ayaan ku shubayaa, laakiin nuskiilada dhan kuma wada shubaayo. nuskiiladu waa igu badan tahay adiga, laakiin qiyaastaada adaa yaqaana. soo nuskiilada kuma wada daraya, adiga rubac iyo 10 camal qiyaas abaan ku daraya insha allah. intaasa kasoo reebay walaalahayga qaaliga ujeedaan, adiga rubac camal aan kasoo reebay. marka nuskiilada way igu badan tahay. hadda waa diyaar, daboolka ayaan u dhiibaynaa. markay bislaato aan isku soo noqonaynaa ee biyaha dhammaysato insha allah. okay asxaabi waa kaasaa maasha allah baastadeeni sida quruxda badan ayay kusoo baxday. intaa yar dhacaanka markay dhammaysato ayaan soo gurayaa. hadda waa tana waa diyaar asxaabta. saxankii aan ku guran lahayn, ku diyaarsan lahayn aan soo qaaday. saxankii aan ku guraynaa maasha allah tabaarakallah. sadar muuqda su-aal ka dhan halkaasaaba uga jeedaanba caraftaa ka daran maasha allah. dhadhankeedana waabad iska garanaysiinba. maasha allah tabaarakallah. waa ujeedaan sida quruxda badan ee qadadeena ay kusoo baxday. qadaa ka dhigan ka dhaa casho fudud ya wax kastay ku geli kartaa maasha allah. qadiya casho kii laga dhigaba waa maraysaabaa idin dhahay walaalahayga qaaliga maasha allah tabaarakallah. asxaabteeda qaaliga aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida quruxda badan ay la socotaan. waa idinkaga mahadcelinayaa sida quruxda badan mar walba channelkayga usoo booqataan uga warhaysaan. waa idinkaga mahadcelinayaa. ilaahay idin sharfa iyo adin leeyahay meel kasta joogtaana ilaahay idinku xafido. soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah. haddaan nagu cusub tahay please subscribe the channelka, gambaleelka furo saa ula socoti video kasto aan soo geliyo insha Allah tacaala. haddii aa horey noola joogtayna thank you ayaan ku leeyahay. clipka noo share gare insha Allah. asxaabtaada la wadaag, like de, commentiga iyo qoraaladiina aad bay ii dhiirigeliyaan ee quruxda badan maasha Allah tabaarakallah. mar walba waa idinkaga mahadcelinaya. waxaana ku dadaalaa qof walba xitaa inaan reply usoo galo. waa aragteen maasha Allah.
anoo qadarin ay intaas iga tahay maasha allah asxaabteyda maadaama iyaguba ay wax soo qarin in aan reply u gala aad aan u jecelahay maasha allah asxaabteyda ilaahay idin barakeeyo waa u jeedaan hee insha allah fiidiyoyo kale oo qurux badan ayaa soo socda ha moogaanina mar walba nala jooga ayaa idin leeyahay saaxiib dhowna u ahaada Farxiya Bilan Cooking waxaa idinkaga sii tagayaa walaalahayga qaaliga sidaas iyo nabadgelyo noole kulante assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.